السلام عليكم أصحاب تقاليق السودة وهذا وولاشين الشادي قرو حدي أدجنا لكو عصوب تاي سبسكرايب جنبالي الكنفرو لايك تنوصر إن شاء الله ما أنت وحاولنا مع معانك عيدة بسكت كان أيا إنه هوريو سيدان قروح البنا يوكسوب بحي سيدان قصمين أيا إسلا أركينا وكان ماشان وحان كويستا سدح أكون بكيري سكر iyo meeshan waxay u jiro 4 galaas oo bur ah insha Allah hadeertaan waxaan sameysanaynaa hawshii ila socda bakeerigii sokorta ayaan ku shubay waxaan kaloo ku daraa bakeeri saliid ah waa u jeedaan cabirka aniga waxaan isticmaalaa bakeeriyadan ayaan isticmaalayaa bakeeri saliid ah ayaan ku shubay 3 xabo ukun ayaan soo jabsaday weel ayay igu jirtaa 3daas ukunti ayaan ku darsaday إن شاء الله وانسكو قصاصي في عن إلا سكرت أي كدلاشو سكرت مركي ما تو كديب أيان وحان قدر سنينا باكين بودر كي عارفي صدي إيو يسلا سعد وناكسن أصحاب تقاليقة عيد مبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ميل والبو أدجوكتان إلهي صونكي ونوسو لمي إنت لمن الله نور لما يستره هادو هاد ujeedaan asxaabta wali waan qasayaa sokortii ayaan rabaa inay dhamaato hadda waxaan ku dari doonaa baking powder-ka ayaan ku daraa wax yar adiga hal qaandada yarta qaandada yariista ma qaandada kale oo caadiga normalka oo hal qaanda ayaan gacanteyda ayaan hadda ku shubtay aniga waa kana baking powder-kan baakada ayaan isticmaalaa adi hal qaando waa cabir ahaan aniga hadda qaando kuma cabirin oo dujeedii sama waa kana sokortu way dhalaashay baking powder-ka ayaan ku dareynaa insha Allah burkeeni si tartiib ayaan u soo shubaynaynaa 4 koob waaye bakeeriga hadda aad arkaysaan 4 tiiso oo bur ee waaye aan isla socona asxaabta qaaliga hadda buskudka ciida waad ka argi doontaan maasha Allah macmacaano kale waa idiin soo wadaa إن شاء الله هذا واحد ربتينو كومنتيجي يقصو قرأ وإذن سو سمينا هذا هالبكير أيام كدري وان لما يستيرينا إن شاء هذا لو بكير أيام كشوانا كدب وان استحق لنا وترتيب هذه هالمرقبها كسينين ترتيب وقص فيري إنو كاجل عيها إنو كل إيجي هاي عبر كائنا سيدا سؤال سعودة أيام وناكسن hadda labadii bakeeri ayaan ku soo daray oo burka ahaay ayaan dhex gelin isku qasayaa kadib markaan qaso wali wajilceen Soomaan waa aragtaan koob kale aan ku soo darsaday sidaas ayaan ku soo wadaynaa insha Allah waan soo diyaarinaa fiidigo inuu igu dheeraadaan diida 4 koob oo bur ee way la socda asxaabta qaaliga waan soo qasayaa si fiican aan isku soo dhaxdilnaa insha Allah oo si fiican u qastid mar walba uu ku hagaaga quruxo ku noqonaa buskudkaaga ileen inaad isdhex geliso lafaha iyo dhuux maal jir iska galaan ayaa la rabaa Soomaa haddana waan soo diyaarinaa insha Allah ila socda waa kana asxaabta waa idin sheegay burka aniga waxaan ku qastay 4 koob la socda iyo koob saliid ah koob sokor ah 3 xabo ukun waa ka sidaas ayuu ku soo baxay maasha Allah waa dareemaysan hadeertaan waxaan saliid soo marsanaynaa weelkii foornada saliid yar iyo bur soo marnaa haddii aad xaanshida haysatin waad saari kartaa problem ma lahan aniga hadeertaan waxaan iska marsanaa saliid iyo bur yar aan iska marsanaa kadibna sidaan u sameysanay buskudkeeni waan isla arkaynaa inuu ku dhagaan diida si fiican ayaan iskaga marmarinaa bur yarna oo ku soo bilbilaa asxaabta qaaliga buran ku soo bilbilaa ujeedin Soomahan burka iyo saliidda wuxuu ka caawinaa inuu kaaga dhago shaygan oo aad sameynayso inuu kaaga dhago ka caawinaa inta waa kana couscous yar ayaan ka dhiganaa
saas ayaan u kuusaa. Naqshado badan aan ka dhiga doonaa isla socod wanaagsan. Hadda sidaas ayaan u kuusaa. ujeedin samaha kuuskaas kaliya saasaan u dhiganaa hadeertaan. kaay adiga 4 mise 5 aan iga tusaa mid walbo insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. kuuskaasaan ka rabaa inuu igu soo baxo. waa sidaas aan ku soo wadaa maasha Allah. naqshadaha waa isla arkaynaa aan soo baraada 4 xab camal ay idinka tusay. sidaas ayaan u soo kuuskuusay. qaybta kaleetana sokor ayaan marmarinaa. hadda kan sokor kuma sameyn kuma shubin sama korkiisa. kana waa qabtay soo kuusay sokor ayaan soo dhexgeliyay. dhaxda waxaan rabaa inaan sabiibka geliyo insha Allah ay kala hor dhicin. sidaas waxaa ku tusaa adigoon isticmaalin qalab iyo wax dhan aan isticmaalin ayaa waxa sameeysan kartaa ayuu naqshad adi aad jeceshahay ayaa sameeysan kartaa. tartiibta wax ka halaabay malahan guriga wixii yaala ku sameeysanaysa maasha Allah biskud qurux badan ayaa sameeysanaysa. sidaas tartiib ayaa sokorta ku dhehaysa. sokorta itaal xoogaa waa weyn tahay ni aad u yar ilaataa fiicnaa lahayd. hadda laba naqshad waa Soomaa kan sabiib ayaan geli doonaa insha Allah. baartaasna sokor ma lagu darin waa lagu kuusay insha Allah. haddana waxaan soo saareynaa design kale cusub aan rabaa inaan sameeyo. hadda kan wali waxaa waaye keeko kuuska waaye. waa hool fudeed waan ku dhahay maasha Allah. biskud yar ku kuusan oo kala aragan ku soo baxaayo. kan markaad waxaan ka sameynaa naqshad furka oo saliid aad isticmaasho furka biyaha aad isticmaalay naqshad kala aragan ka sameynaa. waa ujeedin sama dak maxaa ka haleysan maasha Allah. baaba kanaaba naqshad qurux badan oo ku soo baxa. sidaas oo igu soo baxo ii sharxan yahay. wax walba guriga yaal naqshad waa ka sameeysan kartaa asxaabteena qaaliga. sokor yaraan rabaa inaan ku sameysto. kana sidoo kaleeto adi mid walba 3 mise 4 ay idinka tusaa. tartiib waad qabanaysaa gacanta wax yar markaas isku dhahdid saas adeeysa. gudahan ma geenaysid tartiib leh ma jeeda. sharxaadan way ku soo muuqanaysaa maxaa ka haleysan maasha Allah. sokortaada yarta ku haddii aad rabtin sokor waa iska dhaafi kartaa laakiin aniga sokortaan hadda iga heesa. qol kale aan sameystay meedina wadaayeen ka sokor maana ku shubin insha Allah laakiin waa idin soo wadaagi doonaa. waa kana si fiican inaad uga bogataan rabaa asxaabteeda qaaliga. hadduu fiidiyowga ku dheeraado dhibaato malan sababtoo ah wax inaad fahantiin ayaa aad u fiican Soomaa. maasha Allah inuu soo baxo sharxaadan rabaa marka. qaybtan sidaas ayaan ku nabadgelinay insha Allah. qayb kale cusub oo design kale cusub baadan idin tusaa. kan waa ujeedin waa soo cosmedian soo qabsanay isaga dak wasanda. haddana dhinacaan kale aan ka marsiina saanta naqshad waa laakiin aniga naqshad kale quruxan ka sii dhigaa. waa ujeedin day tartiib haddana dhankaan kale ka marsiina. xaashaa lillah naqshada ka soo baxda bal fiiriye baa asxaabta qaaliga. aan sokorta iga dhiganta hore idinku sheegmo afaaraan dhan sokor inaa u yeeshtaan rabaa. adi laakiin waa iska dhaafi kartaa xoog ma ahan mise hadaad jecleen kama heshid. mididaan leysaan kusoo dheesaa 4 geesa u jare 2 gees kalena xaale u ka dhigaysaa. dhibaato ma balahanba waxa isdhaaf waaye haddii aad fahmi weysid. waa kana
sidaas quruxda badan leh ayuu kugu samaysan yahayba. insha Allah saxankaas haddaan buuxino foornadan u diraynaa. foornadan geli doonaa naqshadaha kalar inaan ku samaystaan rabaa, green mise cagaar inaan ku sameeyaan rabaa, bal aan xoogaa design-ka bedelo laakiin naqshadii lee ku wadaa koskana saddex naqshad ee Soomaa hoos dhexda sabiib laga gelinayo design-kan afar naqshad waa had sidaan. insha Allah waad u jeedaan maasha Allah asxaabta qaaliga hadaarta dhinaca dhexda ka shakartaa. aniga hadda waxaan rabaa sabiib inaan dhexda ka geliyo, waad u jeedaan farta sartiib saas dhehaysaa sabiibkaaga dhag ku siisanaysaa maasha Allah si qurux badan ayuu kugu soo baxaa. farta lee geli dhinac daahiysatid waa gashan kartaa ayu shayna adiga aad jeceshahayd waa gashan kartaa. hadda waa kana diyaar waaye furunkan u diraynaa mis foornada design kale oo yarko kalarkan sameynaa adi laba saxan oo xeer dhiman oo ii noqday loonkan aqdarka oo boodarkan ka samaysana kanaan ku darsana insha Allah isku dhex walaaqeynaa ilaa iyo oo aqdar zaid mise cagaa aqdar carabigan dhawamiya sax ilaa iyo cagaar oo ku soo baxo waan xasha ila socda kaamirada ka jari doono ilaa duira. asxaabta qaaliga waxaa waa ciid insha Allah macmacaanka familka loo sameeyo ha laga dhiso hala farxad geliyo dariska dadka ehelka kulli dhamaan. qaybteeni aad furunku way ka soo baxday waad arkaysaa anaga noqon Soomaa laba qayb misal arki doonaa soo ku soo baxay biskutkeeni maasha Allah sidaan ayuu noogu soo baxay. ay ka warmee aniga waan jeclahay uu sokortoon ku haystaa idin sheego naqshadii hadayle waa tan sababtoo laakiin waxaan jeclaystay inaan ka dhigo midabkan cagaarka midaba kaleeto kama dhigin ilaa marka hore kuma tala jirin halkan cagaar la igu taaganaa bis sidaas la yeelaynaa waan soo dhigdhigaynaa insha Allah isku soo noqonaynaa Soomaa. asxaabta qaaliga waxaan jeclahay wax walba oo qurux badan inaan ila wadaago. haddii uu muuqaalkan ku cajabiyay fiidiyogan like subscribe share dheh walaalaha kale u share gareey waa ciid ayagana ha ka faa'iideeyaan sidoo ku soo baxin waa isla arki doonaa insha Allah muuqaalkan idinku dheeree doono. waakana waan soo dhameeyay haday sidaan ayuu noogu soo bax quruxda badan leh kus cagaarka xoogaa yar inuu galaaro midab kala jeclaan lahaay mise basali ima yaalin iyo baabuur camal. hadda waa kan asxaabta qaaliga sidaan ayuu noogu soo baxay biskutkeeni insha Allah kala arag waa uu sabiib. haddii aad muuqaalkan ka heshay subscribe like share. assalaamu calaykum muuqaalka xiga inoo